أقشها يسمى سؤال ماها وقوان أن رفعان عدينا كقادن كرين أو كما الدنبيس نحركي أنه أن وجد وحوها بدبادين تحسبك أعي مركا أبدانها الشخصيات كتكت هشيس كاننا كمثل قورين بدبادين تحسبك أعي وحانو كسابية شبانية إلا بدر لنا أي سوى ذا ترئة ودقن قليان هشيسكي أي وضقلين 2012 heshiiskaasina wuxuu ahaa kii aan isku haysanay marankuna ka qabsaday waxaa kale oo iyadana uu heshiiskani caddaynaya in marjacu u noqonayo guddida 10ka ah ee 10ka xubnood qabanqaabada shirweynaha inuu marjac u noqonayo hoggaanka sare waa ayuun baan doonayaa inaan iftiimiyo waxa weeye kow gudoomiyaha laba gudoomiye ku-xigeenka saddexaad oo aniga saddex ku-xigeenka xoghayaha oo cabdinaasir ah saddexdaa xubnood baa ka jira hoggaankii lixda xubnood ee hoggaanka ah waxaa kaloo isla jooga xoghayihii golaha dhexe inkastoo uu kan yahay shirweyne haddaba haddii aanu labadayada dhinac diyaar u nahay inaannu xisbigayaga si wada jira u badbaadin oo aannu dib isu soo kabno oo aannu tartanka si furan uga qayb galno oo aannu higsigii bahweynta oo cid si wada jira u hirgelin waxaa qasaba inuu caqligu shaqeeyo hebel baa laga adkaaday iyo heblaaya adkaatay maaha halkan waxaa taalla dan qaran halkan waxaa taalla badbaadin xusbi qaran halkan waxaa yaalla xusbi ay ummaddu ka sugayso oo ay u aragto markaynu runta isu sheegno inuu yahay xusbiga laga dhex dooni karo ee haddii aan la yidhaa isbeddel dalkan u horseeda in uu waddadii hore aynu muddada dheer soo haynay wax ka beddeli karo marka waxaan ugu bishaaraynayaa dhammaan isbeddel doonka iyo inta danaynaysa Soomaaliland kelmad ma idin sheegaya waar isbeddelka hadiyad la isuma siiyo sida keega aroosyadan intoo foog lagu qaado afka la isma geliyo wuxuu u baahan yahay in loo guntado sidaa daraaddeed fursaddani waxayna siinaysaa inaannu dib uga soo kabanno murankii jiray maanta oo ay maxkamadda sare go'aan soo saartayna wuu dhammaaday khilaafkii cod